waxaa jira waqti ku filan daanyaradan oo ay ku dhammaystaan haraadiga cunnada meeshan ay ka heleen inta aysan u dhaqaaqin badbaadada geedaha dushooda. kuwan yaryar waxay heloodeen wax xiise geliya oo ay ku mashquulaan. xayawaanka kabashiirka wuxuu haystaa maska khatarta badan ee kobraha. si dadban ayuu asxaan ugu samaynayaa daanyarada. hal qaniyo oo maskaan ah waxay dili kartaa mid kasta oo ka mid a kooxda daanyarta ah, khaasatan kuwa yaryar. marka dayaxu soo baxay waxaa la gelayaa xaalad mugdi ah dooxadan. ugaarsatadu waa kuwo bilaabaya guurayntooda. cabsidu waa mid eryihiisa kuwa khatarta u nugul si ay u helaan meel ay ku badbaadaan. hooyadan deerada ah iyo canugeeda waa kuwo u dhaqaaqaya dhulka furan kana fogaanaya dhulka hawdka ah. daaxuurkani waa mid ku hogaaminaya kooxdan daanyarada ah xirmadan geedaha ah. halkani waa meesha ay doonayaan inay ku badbaadaan caawa kadib dhaawac ka soo gaaray dagaal. daaxuurkani waa mid doonaya inuu seexdo meel ka durugsan kooxdan daanyarta ah. wuxuu helayaa laan dusha sare ee geedka. halkaas ayuuna saldhiganayaa kadibna seexanayaa. hoos kooxdan dagiirinta ah waa kuwo u ordaya dhinaca geedaha dhaadheer. waxaa bilaabanaya xilliga habeenka. daanyaradan waxay u muuqdaan kuwo nabad ah geedahan dhaadheer dushooda. waa 100 cagood oo sare oo leh jirid hoose oo toosan oo 30 cagood ah. run ahaantii cid soo kori kartaa ma jirto dhirirka intaa la eg. laakiin kuma aysan xisaabtamin xoogga iyo go'aanka bisad da'yar oo gaajaysan. cidiyaha fiiqan islamarkaana qaroofan ayaa ka dhigaya bisadan mid geedkan si fudud ku fuuli karta. gaaritaanka qalcadda geedka ee bisadda ayaa ku abuuraysa daanyaradan argagax indhala'aan ah. hadda daaxuurkani waa mid laga go'doomiyey daanyarada kale. geed kale oo uu ku baxsado ma leh. shabeelku wuu soo dhaqaaqayaa. markan daanyeerkan waa mid hareeraysan. qaniyada xoogga badan ayaa isla markiiba qoorta jebinaysa. khadka u dhexeeya nolosha iyo dhimashada ee dooxada luwangu ah waa sida tinta jilicsan oo kale. daaxuurka waa mid dhibano u noqday inuu ku guuldaraystay inuu mideeyo daanyarada kale. mid kasta oo u soo baxo inuu la wareego hoggaanka wuxuu u baahan doonaa inuu wax ka barto khaladaadkiisa. qorraxdu markay ku soo baxday dooxada luwangu subaxdii samadu waxay ku bishaaraysanaysaa isbeddel cusub. xilligii jiilaalka waa mid ugu dambayntii soo dhammaanaya. waa maalin cusub iyo xilli cusub
iyo bilowga cusub ee daanyeerada. mid ka mid ah daaxuurada yaryar waa mid ka caawinaya saaxiibtiisa isqurxinta. hadda asaga ayaa hoggaanka qabanaya, wuxuuna durbaba muujinayaa inay tahay koox midaysan. 6 bilood gudahood waxaa la dhali doonaa jiilka cusub si ay u sugaan mustaqbalka ciidamada. hooyadan deerada ah iyo canugeeda sidoo kale waa kuwo badbaadaya habeen kale. labadii maalin ee ugu dambeysay waxay ahaayeen kuwo qallafsan, laakiin canugeeda yar waa mid bartay xirfado badbaado oo muhiim ah. wuxuu ku socdaa waddadii uu kaga gudbi lahaa 5 bilood ee ugu horreysa si uu u noqdo mid da'yar oo awood badan. marka ugu dambeyntii roobabku da'aan, hooyadan deerada ah waxay ka guuri doontaa agagaarka webiga iyadoo u gudbi doonta dhulka daaqa cusub. laakiin kooxdan dagiiranta ah meelna uma socdaan. deegaankan ka midka ah dhulka Zambiya laga yaabo inuu yahay meel khatar badan, laakiin shimbirahan waa kuwo dhiiran, xariif ah, isla markaana garanaya sida looga fogaado khatarta. maxayse samayn lahaayeen deriska la'aanta shimbirahan qaylada badan ee uga digaya khatarta ku soo gabanaysa geedaha gadaashooda?